تا أو إنه جوده هنا صاقلي متجرو وحنا ديار قلنا هاي مركز تنبا شعب كسر بحني إذا قلنا هاي إن عن حويا عن قرب تاجنانه لبعتنا عن لوجي سنين يعني أراها يسا إذا كيبا كلنا يالي إذا كيبا كان هانا وحويا إذا كي ليقيني لويبوس نوالي غنا ديان كنا وديان كيون ترى ودنك أن بس يقول لي هذين نقطة ديان كان إذا كان حو أساسية هي وحو تهرت عيدك وقرية قل ما تهرت عيدك اسمه عيدك بواقي قلمان ما وطو حفيز هرمرنات عيدك كما شقينا إياه طل كان كلاتا وحي دباتكوا قري لسه جلية قرحن هيا دل كان إنه ديان كان لنا هاي بالبلارس ديان ماذا كصوّد درسنا نهاي بان كدفاع عنا bulshada kala kulanti wacan wanaagsan saaxiibayaal meel kastoo dunida dhacaya ka joogtaan ku soo dhawaada barnaamij aanu ka diyaarnay ciidanka xooga gaarka ah ee waa ciidanka loo yaqaan Liu Police ee dowladda deegaanka Soomaalida ciidanka dowladda deegaanka Soomaalida oo bariyay u dambeeyay dagaal hubeysan kula jiray maleeshiyaadka caanfarta ee damacu ka soo galay dhulka Soomaali galbeed waxa kale oo eegi doona taliya ku xigeenka ciidanka Liu Police waa Sakariya oo ka hadlay dagaalka ay kula jiraan maleeshiyaadka caanfarta iyo cid walba oo dhulka Soomaali galbeed damac ka soo galo waxa kale oo dhinaca kale eegi doona dib u habeyn lagu sameeyay ciidanka dowladda Soomaalida iyo gaadiid dagaal oo lagu doonsiiyay qodobada iyo qodobo kale ayaan ku soo qaadan doonaa halka naga daawanaysa waa xaqiiqa news fadlan subscribe noo saar dhinaca kale waxaad naga heli kartaan baraha aan ku leenahay Facebook Anas Jambiir iyo waliba tana xaqiiqa media ku soo dhawaada hada mawduucaas oo faahfaahsan sina share garay fadlan gaaraya amaanke uu ku taday dhulkiisa kugala mabaaray gudaha shacabkana gacan baan ka haystaa saaxiibayaal aanu sii gudagala mawduuceena xukuumadda dowladda Soomaalida ayaa ciidanka xooga gaarka ah ee dowladda Soomaalida gudoonsisay 78 gaari wasiirka madaxtooyada wasiir Xasan Xuseen ayaa generaalka guud ee ciidanka generaal Maxamed Axmed gudoonsiyay 78 gaari furayaashoodii waa ka wasiirka oo gudoonsiinaya taliyaha ciidanka maanta waxaan ciidamada gaarka ama xooga gaarka ee deegaanka Soomaalida ku wareejinaynaa baabuurtii lagu soo iibiyay canshuur dhaafka ee xukuumadda ku soo iibisay qayb kamida oo qaybtii loogu talagalay hay'adaha amniga gaar ahaan ciidanka gaarka iyadoo hay'adaha amniga gaar ahaan lagu wareejiyay baabuur ka badan 70 baabuur guud ahaan baabuurta la soo iibiyay ay ahayd 150 baabuur 150 ka baabuur 30 kamidii waxay ahaayeen 30kii baraadooyinka ay ahaayeen mar horeyna soo galeen oo hadda ka horeysay waxaana lagu wareejiyay madaxda heer deegaan gaar ahaan kabineetka iyo baarlamaanka iyo xubnaha la xiriir la halmaala markaas wixii ka dambeeyay ee kale ama 50 baabuur ee kale waxa loo qaybiyay gobolada oo iyagu gaadiid u baahnaa oo inay kaga hawl galaan howlaha horumarinta iyo nabadgelyada maamulka suuban ee gobolada iyo degmooyinka socda loogu talagalay iyo qaybta kale oo xafiisyada heer deegaan madaxdooda iyo la siinayo wixii shaqo ay ku fulin lahaayeen marka guud ahaan baabuurta la soo iibiyay canshuur dhaafka lagu soo iibiyay 150 baabuur buu ahaayeen badankoodana waxaa lagu wareejiyay hay'adaha amniga gaar ahaan ciidanka gaarka maantana waxay la wareegayaan furayaashii hadda laga bilaabana way hawl galayaan waxaana ku baxday miisaaniyad dhan 277 milyan ayaa ku baxday iyada xukuumaddu ay go'aansatay mar kale in la soo iibiyo 150 baabuur oo kale qaar waaweyn ku jiraan kuwa kale oo kuwii ciidanka ku jiraan hadda maanta aan wareejinayno oo kale ay ku jiraan kuwii maamulku haddana warqadoodii la diray lana raba canshuur dhaaf in lagu soo geliyo miisaaniyadoodiina la diyaariyay si maamulka iyo ciidamadaba looga haqabtiro gaadiidkii ay ku shaqayn lahaayeen baataana la go'aamiyay already warqadiina la diray processkiina la bilaabay marka waxaan oran karaa hadii 150 baabuur ay soo gashay 150 kalena ay jidka ku soo jirto 300 oo baabuur wax badan bay ka bedelaysaa gaadiidkii iyo baahidii loo qabay wasiirka madaxtooyada dowladda Soomaalida wasiir Xasan Maxamed Xuseen Xasan Taadi ayaa sheegay inay gaadiidka ilaha soo gaaray dowladda Soomaalida ay ahaayeen tiradooda guud 150 gaari intii kale la siiyay maamulada degmooyinka iyo gobolada
wasiirka ayaa sheegay gaadiidka haatan soo gaaray oo 150 ah intii si badnayd in la guddoonsiyay ciidanka xoogga gaarka ah sidoo kale wasiirku wuxuu sheegay inay soo socdaan 150 gaari oo kale oo iskugu jira gaadiidka waaweyn ee ciidanka iyo waliba kuwa yaryar inta badanna 150 ka soo socdaan la guddoonsiin doona ciidanka xoogga gaarka haddaba wasiirka ayaa sheegay kharashka ku baxay ama dhaqaalaha ku baxay inuu dhan yahay 277 milyan oo lacagta Itoobiya birka dhinaca kale waxaa goobta ka hadlay taliyaha guud ee ciidanka xoogga gaarka ah Generaal Maxamed Axmed Tuur ayaa sheegay inay baahi fara badan u qabeen gaadiidkan haatan la guddoonsiyay generaalka ayaa ugu baaqay ciidanka inay daryeelaan gaadiidkan cusub ee haatan la guddoonsiyay iyo waliba kuwa kale soo socda generaalka ayaa sheegay in haatan gaadiidkani wax fara badan u qaban doonaan ciidanka oo muddooyinkii u dambeeyay ku jira howlgallo amni waa kan generaalka oo ka hadlaya gaadiid laayin baa ahayd oo gaadiidkanaga oo aad u gaboobay oo ciidankan weli gaadiid inta loo iibiyey muddo dhow ma lahayn wax gaadiid ilaa 11 sano 12 sano la watay oo buuraha aragteen iyo dhulka aragteen marayay buu ahaa hawlgallo waaweyn ku jiray buu ahaa marka baahidii ugu weyneyd ee haysatay maanta waana laga furay alxamdulillah baan leenahay guul dawladana aad baan ugu mahadcelinaynaa inay nacam sidana loo siiyay hamigana la siiyay iyo sida tukradana la siiyay waa mid maanta aad aan ugu faraxsanahay hadaan ciidanka xoog gaar ka nahay marka baahidii noogu adkayd maadaama ay noo fududeynayso 100% aad baan yaan ugu mahadcelinaynaa dawladda annagana waxaana laga rabaa inaanu hantida ku baxday maadaama ay hanti badan tahay ina gawaadhidantadii si la jecel leh si tayale loo wado oo mas'uulka lagu qoray iyo darawalka lagu qorayba inay hanti dadweyne oo ciidanku u baahan yahay maanta inta gawaadhidan la qaaday ina ama la rido ama la jeclaan lagu rido ama damir darro lagu waxayo midna laga saaxiibay waxa wali noo soo socday warbixin ku aadan dagaalka Soomaalida iyo caanfarta iyo waliba taliyaha ku-xigeenka ciidanka xoogga gaarka oo arintaasi ka hadlay aynu ku soconnaa qaybtan taliyaha guud ee ciidanka xoogga gaarka ah Generaal Maxamed Axmed Tuur wax lagu weydiiyay in dariiska ciidanka xoogga gaarka la bedelayo ayaa sida tan kaga jawaabay dalina dariiska waa run way nagu raagtay marka hawlo jiray darteed waxaan ogeysanayaa dadka hawlo jiray hadda ka hor wadanka gudihiisa ka dalbanay waa kuwii Tigreegu waxay fabrikooyinkoodna Tigreega ahaayeen marka tii lacagtii waan la soo noqonnay hadda China aan ka dalbanay dariiskan wayaan marka dariiskan sayskii ugu horeeyay naamunada waa noo timid marka 20 cisho kadib inuu dariiskii oo laba ah noo imanayo oo markabka 20 cisho markab ku jira mooyee already waa la dhameeyay lacagtoodina waan shubnay marka bishan imika faranjiga ee socota tabayaaqadeeda intayna dhamaan wayna soo gaarayaan insha Allah taliyaha guud ee ciidanka xoogga gaarka ah dowladda Soomaalida Generaal Maxamed Axmed ayaa sheegay in dariiska ciidanka dowladda Soomaalida ay haatan ay xidhan yihiin la bedeli doono isagoo sheegay inay horaan rabeen in la bedelo laakiin ay caqabado yimid awgeed xilliga soo gaadhay generaalka ayaa sheegay inay haatan ka dalbadeen wadanka China dhawaana uu soo gaari doono caasimadda jigjiga ee dowladda Soomaalida generaalka ayaa sheegay in bisha soo socota dhexdeeda guud ahaan ciidanka dowladda Soomaalida laga bedeli doono dariiska isagoo sheegay in dariis qaybtiisa koobaad haatan timid oo xidhan yihiin generaalada ama taliyaasha ciidanku loo xidhi doono guud ahaan ciidanka dowladda Soomaalida dhaqdhaqaaqyo inay ka jiraan dhinaca xadadka deegaankeena iyo deegaanka cafarta waxa weeyaan xaalad dowlad weeyaan waana xaalad in badan soo taagneed weeyaan saaxiibayaal u sii gudagal mawduuceena qaybtiisa labaad oo ku aadan dagaalka gardarrada ee cafarta ku soo qaaday dhulka Soomaaliyeed gaar ahaan gobolka City galbeedkiisa intaynaan u gudagalin mawduuca qaybtiisa labaad fadlan barta naga daawanaysa waa xaqiiqa news barta in ku leenahay YouTube-ka haddaad nagu cusub tahay subscribe noo sar baraha kale naga heli kartaan waa baraha in ku leenahay Facebook fadlan meel kastoo naga daawanaysa share iyo like كسر دفاع وسيجود بي يوتيوب كنا سبسكرايب صار هذا ينسيجود بالموضوع عنا قيبتي سلاماتنا يدو دوانها بس عدي دجال كون حياة الصوماليين عنفرت وكاسو عنفرت اللي جد دفاع يروك الصوماليين ودمع وكاسو قالي تدمع ذي قدام بير عشر لما إلا هو أنا الله جاي من الأشياء كعنفرت شعب كالصومالية كبر كعنا يا قلبات كقبل كستي هذا ما وحكاه اللي قلقلتوين كقدر حتى يعني عنفرت يا صوماليين تليكوا عينك عيدا كجار كيدو ديان كالصوماليين سكريا عبد خليف taliyaha ayaa sheegay in ciidanka dowladda Soomaalida waa ciidanka xoogga gaarka ah ay difaaci doonaan dhulka Soomaaliyeed ama dhulka Soomaali galbeed aan idhaahdee goob walba ay tahay gees walba ay tahay iyo dhinac walba ay tahay taliyaha ayaa sheegay in nafta iyo waqtiga u hibeynayaan difaacidda dadkooda iyo dalkooda waa kan taliyaha oo ka warbixinaya dagaalka caanfarta ay kula jiraan innaga ka ciidan ahaan iyo ka deegaan ahaan goobihii la inoogu talagalay baan joognaa deegaankeena ahaa
baan ku sugannahay dagaallo markuu dhaco dhimashaa iman dhaawac baa iman laakiin dhimashada iyo dhaawacu markay istaagaysayay waa markaa heshiis laba deegaan ah uu dhaco weeyaan maalmihii hadda u dambeysay waxaan maqlayay ciidankii liiboskaada la laayay oo ciidankii baa kan loo geystay guud ahaan waxaan sheegaya markaa oon cadaynayaa hal goob oo ciidanka liiboska laga furtay ma jirto oo ama hal qabale oo deegaankeenahoo deegaan kale uu gudaha usoo galay ma jirto oo saameyn innaga inagu yeelatay laakiin inta labadan deegaan deegaanka soomaalida iyo deegaanka canfarta heshiis nabadeed uu ka imanayo oo ay dowladdu ka gaadhiso cid kasta oo isku day soo samaysa oo deegaankeenna soo gashana ciidankan waxa weeyaan iyo ammaan waan u haynaa laakiin wax dhibaataa oo innaga gudaheenna soo galay ma jiro waxaanan diyaar u nahay mar kastaanba shacabka aan ka soo baxnay ciidanka u nahay inaan waxa weeyaan aan garab taagnaano dhibaatana aan loo geysanin yacni odhaahdan odhanaysa ciidankii baa kalena yeelay ciidankii baa kan ahaana waxa weeyaan ciidanku waa ciidankii la yaqiinay liibosna waa la yaqaanaa deegaankana waa deegaankii uun ciidankuna waxa weeyaan nidaamka dhimashada iyo dhaawaca mid cusub ma aha shalay baa la dhintay berri baa la dhiman waa mid joogto noqonaysa inta heshiis dhacayo labada deegaana taliya ku-xigeenka ciidanka dowladdeegaanka Soomaalida oo hadalkiisa sii watay ayaa shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay inay ka daayaan moral dilka ay leeyihiin ciidankii baa la laayay ciidankii baa sida la yeelay isagoo taa bedelkeeda ka codsaday shacabku inay garab siiyaan oo gaashaan u noqdaan wuxuuna shacabka ugu baaqay inay xogta cadowga u soo gudbiyaan meel walba ay joogaan taliya ku-xigeenka ayuu hadalkiisa sii watay ayaa sheegay tani iyo meel walba oo ay xuduud deegaanka Soomaalidu kala leeyahay qoomiyadaha kale inay difaaci doonaan isagoo carabka ku dhuftay tani iyo Kenya xadkeeda waa mooyaale iyo ilaa iyo xadka Djibouti haddaba taliyaha hadalkiisa sii watay waa kan nidaamka dhimashada ee baraha bulshada loo isticmaalayo waa nidaam khaldan weeyaan oo sharciga waafaqsanayn waayo ciidankani dagaal baa loo sameeyey in deegaankan kadata xadkiisa uu difaaco dhibaato kastoo ka imanaysa al-shabaab hadday noqoto daacish hadday noqoto ciidan kale oo hub sharci darraa ee waddanka la soo gelaya hadday noqoto ciidankan wuxuu asaasan yahay wuxuu wataa horta ciidanku waa qoriye qalin ma wato horta ciidanku buugaag iyo qalimaan ma wato xafiis horumarineed ciidanku kama shaqeynaye dalkan kadaata wixii dhibaato ku ah qori la soo gelaya qarxin haya dalkan inagu deegaanka aan leenahay dhul ballaars deegaamada ku soo wada aan darisadana nahay baan ka difaacaynaa bulshada kala gedisan waxaan u sheegayaa in bulshadu ay ku mashquulsho nidaamkeeda horumarineed isjacaylkeeda hay'adaha amniga la shaqayntooda nidaamka ay iyagu waxa weeyaan ay noloshooda u horumarin lahaayeen keliya inay ku mashquulsho oo hay'adaha amniga ay xadka iyo gudahaba kala shaqayso nidaamka xogaha ay naga caawiyaan hubka sharci darrada ana total waxaan u sheegayaa shacabka hubka sharci darrada ee qabiilba qabiil ku dilayo in laga waantoomo guud ahaan deegaankeenna waxaan ogsoonahay iska mooyaale iyo iska Djibouti ilaa canfar kilal iyo inta iyo Kenya oo mooyaale aan xal leenahay inta u dhaxaysa ciidanka xoog gaarka xiray weeyaan oo xadka jooga shacabka intaas marka degan waxaan u sheegaynaa in ay ciidanka ka caawiyaan xogaha cadawga hubka sharci darrada ah inay ka caawiyaan oo ku mashquulaan oo kaliya laakiin baraha bulshada loo isticmaalayo xitaa qaabkii dagaal baa shalay dhaco waa lagu dhintay anu xigmad inay keeni ma qabo cidda soo dhigtana waxa weeyaan in aad loogu mashquulo ma qabo waa ruux waxa weeyaan aqligiisu uu aad u shaqeynin weeyaan gaadhayaha ammaankee uu ku taday dhulkiise kugadaama baarahay guud ahaanba shacabkana gacan baan ka haystaa gaadhayaha ammaankee uu ku taday dhulkiise kugadaama baarahay guud ahaanba shacabkana gacan baan ka haystaa Garwadeen cadaalada oo ka
kusoo dhiga oona kala aqoono gabanayni baanahay gacanbira kusoo dhiga oona kala aqoono gabanayni baanahay